markaa dhigaysaa qof dhinac kasta nolosha ka guulaystay. Haddaad si dhab ah ugu dabaqdo noloshaada, waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso maxaa ka dhigaa muuqaalkan mid ka duwan muuqaaladii hore aad usoo daawatay. Halkan kuma helsid keliya tirooyin guud, balse waxaad ku helaysaa siro ku saleysan tijaabooyin ay isticmaalaan dadka guulaystay lagula dabaqi karo nolol maalmeedkaaga. Marka hore bal ka fikir, ma jirtay waqti aad rabtay inaad bilowdo nolol cusub balse aadan garan sida aad u sameyso oo aad u bilowdo noloshaas cusub? Ma jirtay waqti aad rabtay inaad guul ka gaarto waxbarashadaada, ganacsigaaga, shaqadaada, balse aad dareentay in dariiqu uu mugdi yahay? Haddii aad jawaabto haa tahay, waxaan ku hayaa furayaashaas oo badan. Sidaa daraadeed, mid kasta oo ka mid ah xeeladahan kula wadaagayo waxay ka dhigi kartaa noloshaada mid si weyn u beddesha. Soo qaado buug iyo qalin oo ku qoro meel waxyaabahan kula wadaagi doono, maxaa yeelay kuwani waa cashir noloshaada wax ka beddeli doona. Aan bilowno safarkeena xiisaha badan. Number 1, fahan naftaada. Xeelada ugu horeysa ee guusha noloshaada waa inaad fahantaan naftaada. Haddii aadan fahmin cid aad tahay, waxaad noqon doontaa qof la jiito oo loo jiito meel walba. Laakiin markaad fahanto, waxaad awoodi doontaa inaad doorato dariiqa aad rabto inaad qaadato. Tusaale fudud, qof walba wuxuu leeyahay xoog iyo tabar, balse qaar waxay ku fiican yihiin hadalka, halka qaar kale ku fiican yihiin qoraalka, halka kuwa kale soo haray ku fiican yihiin hal-abuurka iyo xisaabtaba. Haddii aad waqti ku bixiso inaad isbarato, waxaad ogaan doontaa halkaad ku fiican tahay iyo halkaad u baahan tahay inaad iska horumariso. Waxaa la yidhi qof aan isgaran waa qof aan jirin. Taas micnaheedu waa haddii aadan isbaran, waxaad isku wareeri doonaa adiga iyo noloshaada. Marka xeelada koowaad waxay ku hogaaminaysaa inaad isweydiiso su'aalo dhowr ah. Number 1, maxay yihiin waxyaabaha ku fiicanahay? Number 2, maxaan jeclahay inaan sameeyo? Number 3, halkeen rabaa inaan gaaro 5 sano soo socota haddii naftayda ii daayo? Markaad ka jawaabto su'aalahaas oo dhan, waxaad bilaabi doontaa inaad hesho sawir cad. Sawirkaasi cadna waa wadadii guushaada. Xeelada labaad, maareynta waqtiga ama time management. Xeelada labaad ee nolosha lagu guuleysto waa inaad barato sida loo maamulo waqtigaaga. Waqtigaaga waa hantida ugu qaalisan ee aad leedahay. Lacagtuba way lumi kartaa oo dib ayaad u soo celin kartaa, balse waqtigu mar haddii uu tago, marnaba ma soo laaban doono. Dad badani waxay ku mashquulsan yihiin hawlo aan muhiim ahayn, halka ay iska indhatiraan waxyaabaha dhabta ah ee u horseedi kara guul. Waxaa laga yaabaa inaad saacado badan ku bixiso daawashada social media, ciyaaraha iyo sheekooyinka aan faa'iidada lahayn. Laakiin haddii aad barato inaad mudnaan siiso waxa noloshaada wax ka beddeli kara, waxaad noqon doontaa qof saaran jidka guusha. Waxaa jirta oraah caan ah oo oranaysa, haddii aadan qorsheysnayn, waxaad qorsheynaysaa fashilkaaga. Taasi waa run. Qof aan jadwal lahayn wuxuu ekaanayaa markab badda dhexdiisa taagan oo aan jahal lahayn ugu socdo. Marka xeelad labaad waxay kuu boorinaysaa inaad si dhab ah uga fikirto waqtigaaga. Haddii aad waqtigaaga si fiican u isticmaashay, waad ku raaxaysan doontaa horumarka joogtada aad sameynayso. Xeelada saddexaad, kalsoonida naftaada ama self confidence. Kalsoonida nafta waa awood aad ku aaminsan tahay naftaada, isla markaana aad ku kalsoon tahay kartidaada, aqoontaada iyo go'aamadaada. Qof aan kalsooni nafsi lahayn waxa uu nugul yahay shaki, cabsi iyo inuu ku tiirsanaado dad kale, halka qofka kalsoonida leh uu qaado tallaabooyin geesinimo oo uu ka gudbo caqabad kasta ee nolosha soo wajahda. Sidoo kale, kalsoonida nafta ma aha inaad isweynaysiiso oo aad isqanciso, balse waa inaad is aaminsanaato oo aad ku qanacsanaato in aad wax qaban karto. Waa inaad tiraahdo waxaan awood u leeyahay inaan tan sameeyo, balse haddii aad tiraahdo aan sameynin, taasi micnaheedu waxay tahay inaadan kalsooni isku haynin. Kalsoonida nafta ma aha kaliya inaad isku kalsoon tahay, balse waa inaad sameyso go'aanadaada. Maxay muhiim u tahay kalsoonida nafta? Kalsoonida nafta waxay kuu oggolaanaysaa inaad hesho fursado cusub, sababtoo ah xitaa fursadaha waxaa laga raadiyaa qofka nafsadiisa ku kalsoon. Waxay kaa caawinaysaa inaad ka gudubto cabsida iyo shakiga. Waxay dad kale kuu noqonayaan kuwo ku ixtiraama oo kalsooni kugu leh.
waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad u adkaysto caqabadaha jira. Sidee loo dhisaa kalsooni? Number 1, isbaro oo fahan meeshaad ku fiican tahay iyo meeshaad ku liidato. Number 2, ha yaraysan guulaha yar. Markasta aad ku guulaysto waxyaalaha yaryar, kalsoonidaada way kordhaysaa. 3, isqurxi oo isxifdi. Habkaad u labisto iyo habkaad u dhaqanto waxay saameyn ku yeeshaan sida aad isku aaminsan tahay. Marka caqabadaha ka hor istaagaya inaad dhisato kalsooni maxay yihiin? Number 1, isbarbardhigga joogtada ah. Jooji inaad isla barbardhigto dadka kale. Dhaqanka noocan waxaa sameeya dadka aan nafsadooda kalsooni ku qabin. Number 2, xusuusta guuldarooyinkii hore aad soo dhaftay. Dib ha u raacin fashilka iyo guuldarooyinkii hore kusoo maray. Wixii tegay way tegeen, sidaa daraaddeed isku day marnaba inaad dib u xasuusto wixii tegay. Waxay dhaawacayaan kalsoonida nafsadaada. 3, cabsi ay keento. Maxay dad kale iga oranayaan haddii aan sidan sameeyo? Weligaa ka fikirin waxa dad kale ku oranayaan. Waxba kama khuseeya waxa dad kale afkooda ayaga ayuu ku yaalaa. Kaliya isku day inaad sameyso waxa la raali ka yahay kalsoonidaada iyo nafsadaada kor u qaadaya. Dad kale ayaga ayaa afkooda iska xiran doonaba. Xikmad ku saabsan kalsoonida. Waxaa jirta hal xikmad oo caan ah oo oranaysa qofka aaminsan inuu wax qaban karo iyo qofka aaminsan inuu waxba qaban karin labaduba way sax yihiin. Sababtoo ah Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri innamal a'maalu binniyat. Amal walba wuxuu ka yimaadaa niyada. Qof kasta inta uu hankiisa leeyahay in leeg ayuu dhaqaaqaa. Tani waxayna tusinaysaa fikirka nafsadaada ku qabto inuu go'aaminayo noloshaada iyo guushaadaba. Kalsoonida nafta waa saldhig muhiim u ah guushaada. Haddii aad nafsadaada ku kalsoonaato waxaad qaadi kartaa tallaabooyin waaweyn ee noloshaada horumar u keenaya.